madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa gobolka Shabeellada Dhexe ayaa si adag uga hadlay isbaarooyinka iyo dilalka ka jira gobolkaasi isagoo eedeymo culus dusha ka saaray beesha degta gobolka. Madaxweynaha ayaa sheegay in gobolada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan uusan ku soo arkin wax isbaaro ah balse uu ku arkay ama looga sheegay meelo badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Madaxweynaha oo boqolaal shacab ah kula hadlayay deegaanka Nuurdugle oo ka mid ah deegaanadii laga xoreeyay khawaarijta Al-Shabaab waxa uu sheegay in ceeb iyo wax aan la aqbali karin ay ku tahay beesha isbaarooyinka iyo kicinta fidnooyinka qabaa'ilka ee ka jira gobolka Shabeellada Dhexe. Soomaaliya meel isbaaro taallo gobolkani ayaa ka jira. Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug oo aan tegay wax isbaaro ah ma yaalaan kumana soo arkin. meel aan gobolkan ahayn kama jirto isbaaro ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh oo shacabka si toos ah ula hadlayay. Wuxuu intaasi ku sii daray ceeb iyo kama harta waaye in dadkan sharafta badan sumcaddooda uu xumeeyo tuug isbaaro dhiganaya, kuwa jidgooyooyinka u dhiganaya dadka safraya iyo kan saqda dhexe inta qori qaata soo dilaya nin maskiin ah. Waa fidnay wadayaal qabaa'ilna ma sheegtaan nagamana tirsana ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ku goodiyay in dowladdiisu ay tallaabo adag ka qaadi doonto waxa ka jira gobolka Shabeellada Dhexe. Xilligaasi hadalka madaxweynuhu waxa uu ekaa goodin toos ah waxaana garbihiisa taagnaa saraakiisha hogaamisa maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shoote iyo Liibaan Cali Yarow. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka soo laabtay jasiida Nuurdugle ayaa soo gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo beelo walaalo ah duleedkeeda ay maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayeen. Gogol ayaa beelahaasi loo dhigay degmada Cadale waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sidaba lagu casuumay heshiis lagu saxiixayay xabad joojin iyo in beelahaasi aysan dib dambe isku dagaalami doonin. Sidoo kale waxaa heshiiskaasi ku jirta in la toogto ninkii nin dambe dila. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u muuqda nin go'aan adag ka qaatay dagaal beeleedka soo laalaabtay ee ka jira aagga degmada Cadale, halkaasi oo ay degaan beelo walaalo ah balse dhimasho aad u badan isku geystay maalmihii la soo dhaafay, bilihii iyo sanadihii la soo dhaafaba. Madaxweyne Xasan waxa uu maanta sidoo kale kormeeray jiida dagaalka ee deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana hoostaga degmada Cadale, halkaas oo ay difaac uga jiraan ciidamada qaranka Soomaaliya. Madaxweynaha waxaa booqashadani ku wehelinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka xoogga dalka, saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida, xildhibaano, maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, wasiirro iyo xubno kale. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ku hurgalay sida ciidamadu ay ugu diyaar garoobayaan dagaalka dhinaca kooxda argagixisada ee Al-Shabaab si loo gaaro deegaanada bartilmaameedka ah ee maalmaha soo socda duulaanka lagu ekeyn doono. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furimaha kula hadlay ciidamada uu ku booqday waxa uuna ku booriyay guulaha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isagoo doonaya in toddobaad ama 2 toddobaad lagu soo afjaro dagaalka ka soconaya gobolka Shabeellada Dhexe, isla markaana kooxda argagixisada ee Al-Shabaab degdeg looga xoreeyo gobolkaasi. Madaxweynaha ayaa u muuqday in hadda uu culays ka saaray beeshiisa iyo nidaaminta gobolka Shabeellada Dhexe oo muddo dheer ay kooxda Al-Shabaab deegaano badan ka haysteen, qayb ay isbaarooyin yaalaan halka qaybo kalena ay dadka deegaanku ku dagaalamayaan. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisani waxa uu ku muujiyay canaan oo u jeedinay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Hirshabelle, isagoo sheegay in isbaaro dambe aysan ka ogolaan doonin dowladda dhexe Hirshabelle. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in dowladdiisu ay canshuurihii uga tanaasushay dowlad goboleedka Hirshabelle si loo nidaamiyo, hase yeeshee waxa uu sheegay in isbaarooyin bilqan ah ay yaalaan deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi, taasna aysan dowladda dhexe ka aqbalaynin Hirshabelle. Waxa uu tusaale u soo qaatay oo ku adkeeyay madaxweynuhu madaxda Hirshabelle in boonadii gaariga looga jaro degmada Cadale oo toos ugu tegi karo meel kasta oo uu safar u yahay. Waxaa xusid mudan in isbaarooyinka ka jira gobolka Shabeellada Dhexe ay u yaalaan saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa la sheegay inay hoos tagaan isbaarooyinka yaalla deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellada Dhexe.